habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeena daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 13 Sebtembar sanadka 2023 Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah mashaqadii Liibiya ka dhacday oo tirada dhimashadu ay 7,000 hadda ku dhowdahay Kim Jong Un iyo Vladimir Putin oo heshiis cusub gaaray hay'ado caalami ah iyo wufuud caalamka ka socota oo gaartay Laascaanood caasimadda maamulka SSC Khartoum ciidamada dawladda ee safafka hore ee dagaalka ku jira salliga nabiga iyo qasiidooyinka ayay dagaalka ku dhaxwadaan محمد ليتني سرت ضريحا بديبة لما جسمك يا محمد من أتاك للروم غزد بزورك نال مدلبه محمد khilaafka doorashooyinka Puntland oo halkiisii taagan taliyaha ciidanka asluubta oo loo yaqaano taliya shub oo digniin u diray dadka degan dhulka ciidanka asluubta ay leeyihiin cid kasta meeshaas degtay oo shalayna inta la raray soo noqotay adeer alaabtaada ka jafjafo oo guur nin dalka Uganda hal mar ku guursaday 7 dumar ah laba kamid ah waa walaalo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Cabdi Qorqor iyo Mahad Salaad oo wisil jooga qabiiladan calamada cusub samaysanaya oo qaati billahi laga taagan yahay iyo dabcan xubinteennii suugaanta aan ku bilaabay mashaqadii dabaylaha iyo fatahaadaha ahayd ee dalka Liibiya ka dhacday ayaa dadka ku dhintay hadda waxa la sheegaya tiradooda inay ku dhowdahay 7,000 oo qof kumanaan kale ayaa raq iyo ruux meel ay jiraan aanan war laga haynin gurmad baa socda magaalooyinka ugu daran waxa kamid ah bariga dalkaasi magaalooyin ku yaala sida Benghazi iyo Derna meedad hor leh ayaa laga soo saaraya dhulka qaarkiisa dhaqaatiir ayaa halkaasi joogta dhimashada ugu badan waxa ay ka dhacday meelihii ay ku fataheen daadadkan qulqulaya arrimaha ugu daran waxa weeyaan dalkaasi oo ku jiray dagaal sokeeye iyo kala qabqabnaan oo kooxo walba ay dhinacba haysato wayna adag tahay in dadka qaar loo gurmado wahagaag Kim Jong Un oo maalmahanba ku sugnaa dalka Ruushka ayaa Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka waxa uu la gaaray heshiisyo dhowr ah arrinka ugu muhiimsan ayaa ah in waqooyiga Kuuriya arrimaha dayax gacmeedka ay ka caawin doonto Ruushka heshiiskan dunida oo dhan ayaa isha ku haysay labadan nin waa Vladimir Putin iyo Kim Jong Un wiilka yar ee xukuma waqooyiga Kuuriya reer galbeedka ayay dhinac uga soo wada jeedaan Kim Jong Un wuxuu mar kale ku celiyay in tallaabo walba oo Ruushka uu ka qaaday Ukraine uu garab taagan yahay wahagaag haatanna Soomaaliya ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira shabaab furimaha horena jooga ayaa dagaalka ka sokow waxay halkaasi ku wadaan digriga iyo qasiidooyinka oo ay fariisimadooda ku dhex qaadayaan محمد ليتني سرت ضريحا بديبة لما جسمك يا محمد من أتاك للروم غزد بزورك نال مدلبه محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يغفر الله الخطايا لنا وصولنا بك يا محمد والفروع ومن دعاني لمدحك والمشايخ يا محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ربنا صلى عليك وسلم ثم آلك يا محمد ثم أصحابي متى ما يقول عبيد الرحمن محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ربنا صلى عليك وسلم ثم آلك يا محمد ثم أصحابي متى ما يقول عبيد الرحمن محمد wahagaag doorashooyinka Puntland wali waa la isku haystaa dawladdu waxay wadaa qorshe ah qof iyo cod in doorashada laga dhigo halka mucaaradkana ay diidan yihiin heshiis dhawaan ururada ay gaareen ayaa maanta waxa ka hor yimid golaha deegaanka ee Galkacyo oo sheegay inay iyagu dadka matalaan Puntland sidoo kale mas'uuliyiin joogta waxa ay diideen sida wax loo wado cadayn mowqif golaha deegaanka ee xisbiyada ka ah mideeye iyo ifiye ujeedo cadayn mowqifka golaha deegaanka ee xisbiyada
ka ah mideeye ifiya iyo mustaqbal ee degmada Buurtile annagoo ah golaha deegaanka degmada Buurtile ee ka soo kala baxay xisbiyada magacyadooda kor ku xusan yihiin annagoo tixraacayna xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee lowlowmnisamanka annagoo tixraacayna xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka annagoo tixgelinayna rabitaanka shacabka na soo doortay annagoo ilaalinayna hanaanka madax banaanida iyo dimuqraadiyadda dawladda Puntland annagoo ka hortagayna inuu dhiciso dimuqraadiyadda shacabka dawladda Puntland ay ku taamayeen 25 sano ee soo dhaafay annagoo tixraacayna hadalkii wasiirka arrimaha gudaha oo ahaa in talada golaha deegaanka ay wax ku yeeshaan waxaan cadeynaynaa in aanan qayb ka ahayn heshiis kasta oo ay gaaraan xisbiyadu haddii aysan golaha deegaanku qayb ka ahayn heshiiskaas mana jirto ilaa ay hadda heshiis nagala tashaday oo lagu fariisinayo golaha deegaanka degmada Buurtile waxaan soo jeedinaynaa in talada golaha deegaanka dib loogu soo cesho oo ay ka taliyaan masiirka degmada maadaama ay shacabku wakiil uga yihiin masiirka degmada waxaan soo jeedinaynaa in tartan loo galo isla markaana loo madax baneeyo golaha deegaanka taladooda ee aan kor looga keenin waxa aysan waxba ka ogeyn ugu dambeyn waxaan soo jeedinaynaa in laga feejignaado wax kasta oo dhaawici kara sharafta golaha deegaanka وهجاك هاتنا مقدشان إيمانو تليها عيدك أسلوبته ماذا عبد الرحمن أولو يقانو جنرال شوب أي دقنين سيي دادك دقن قريها الدولة يقولك أي دولة لا يدعي قارهان قولك عيدك أسلوبته كلب كان أنك هادلين وحوياي هاول كصابسان ديغان لغا قوراي oo ciidanka asluubta hadda ka hor markii hore aan joogay meeshaan godka oo dekada ku dhax taalo oo basiibada ah dekada waxaan ugu amray dawladda in aan ka guurno meesha ayada banayno si dekada loogu fidiyo loogu ballaariyo dhulay ayadu ka mid tahay annaga waxay naga qusay waa ka rarnay meeshii dekada iyo wasaaradda dekada anigoo la kaashanay waa rarnay meel baan dejinay dadkii asiga ahaa dadka suuqa iskama degi karaan meel baan dejinay nin kasta oo inta ka rarnay dhul baan siinay meeshiina waa banaynay nimankii baan ku wareejinay tiyo sidaasaan aniga ka tagay ciidanka asluubta ka bacdi madaxdii markaas joogtay way soo celiyeen dadkii meeshii ay ku celiyeen haddana doodeeda taagan naga raraa liilay rarku waa gar war shalay lagu raray maxaad u soo noqotay oo dhul lagu siiyo lagu dajiyay sababta u soo noqotay maxay tahay oo ogolaatay haddana meeshii deg haddaad ogolaatay haddana waad guuraysaa hadda amar waxaan ku qabnaa in laga guuro la baneeyo cid kasta meeshaas degtay oo shalayna inta la raray soo noqotay adeero alaabtaada ka jafjafo oo guur meeshii shalay lagu geeyay tag gurigaagii deg haddaad meelahan kale oo kaamka guri ku leedahayna gurigaan deg kaamka kilomitir 7 haddaad guri kale ku leedahayna deg banee meesha وهجاك لاسعانود أدنو وفود عالمي يهي أذا سمفل أيا جاري لاسعانود حرونتا قبل كسول وحي لكل من هجاميها maamulka SSC qaatumo xalay un bay ahayd markii hogaamiyaha SSC qaatumo uu magacaabay qaar ka tirsan golihiisa wasiirada balse loogu yeeri doono xogayaal madaxweynaha oo u hambalyeynaya aad iyo aad looga mahad celinaya karaamaynta iyo mas'uuliyadda uu soo magacaabay dadkaas oo dhan oo reer SSC oo yiri Cabdirashiid oo maanta hawshaas adaan kugu aaminay ilaahayna wax ka baryaa inuu igu asturo oo aananiyo isagu toona wax eedii nagaga imaan guul mooyee marka walaale waa u hambalyeynaya madaxweynaha waana garab taaganahay waana dhisaynaa maamul hufan oo dadkiisa u adeega oo halgankii SSC ay dhiiga u daadiyeen SSC Khaatumo runtii haddana uu maamul isu bedelo oo aanu xoojino oo habeen iyo maalinba eegan u noqono وهجاك aan ku noqono dagaalka shabaab iyo gulufka ka socda galmudug Ahmed Abdi Kaariye Ahmed qorqor waa madaxweynaha galmudug maalmahan bafurimaha dagaalka ayuu joogay hadda waxa uu gaaray degmada Wasiil ee gobolka Mudug waxa la socda agaasimaha nabad sugidda Mahad Salaad
galmudug gulufkii ugu weynaa ayaa socda inkastoo meelaha qaar sida wax loo wada la dhaliilay haddana labadii isbuuc ee ugu dambeeyey dhul badan ayaa shabaabka laga qabsaday marka waxaan rabnaa fursadda maanta qarankii Soomaaliyeed oo madaxweynuhu hogaaminayo uu diyaarka idinkugu yahay inaad ka faa'iideysataan annaga war badan waxba ma taro waxaan halkaan uga mahadcelinayaa abwaanada ayaguna aad iyo aad noo baraarujiyay siday ballan qaadeenna nagama hari doonaan waxa kale oo aan rabnaa maanta halkaan haddaan taan isugu imaanay oo saan rabno annagoo aan baqaynin isugu imaanay macnaheedu waxa weeye cadowgii inuu tabar daraaday inuu baaba'ay inuu sii dabargo'ayo waxaan rabnaa haddii alla idmo adinkoo intaan ka tabar yar ayaa halkaan dagaallo fara badan ka gasheen maantay oo cududiinnu ay muuqato maantay oo ay tahay ilaahay wax looga mahadceliyo in aad isdaba raacisaan baan ka rabnaa in ayna soo jeesan oo muddo kooban la dhaafsiiyo dhammaan mudug ilaa galgaduud oo dhan in la dhaafsiiyo oo lagu soo afjaro kolley maba la raba in meel kale loo sii didiye in halkaan ay isku soo dhiibaan ama lagu baabi'iyo wahagaag beledweyne waxaa gaaray gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle wuxuu sheegay safarkiisa inuu ku saabsan yahay howlgalkan shabaabka ka dhanka ah ujeed kale oo hadda qof mas'uul oo u socdo oo loo imaanayo ma jirto oo aan ka ahayn in uu u yimaado waxa madaxweynaha dawladda federaalka uu nagu hogaaminayo oo ah dib u xiraynta iyo in la iska dulqaado khawaarijta dhibaateeyay shacabka Soomaaliyeed walaalayaal wax kale oo aan u imido weyn ma jirto xaflad kale uma imaan booqasho kale oo gaar uma imaan waxaan u imid waxa weeyaan dadaalka uu nagu hogaaminayo madaxweynaha dawladda federaalka oo muddo bil uu fadhiyo furimaha hore ee dagaalka waan u imid inaan qayb ka noqdo waxa la yiraahdaa hadda nin walba qoladiisa la yiri nin walba meeshiisa ha xuraysa dil yiri waxaan malaynaa annaga dhul badan oo rahman haddii aan groupkeennii hoose aan nahay waa isfahmi karnaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha soo socdo waxaan rajaynayaa in guulo badan aan gaari doono insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo wahagaag maalmahan dhulka Soomaalida waxa lagu arkayay qabiilo calamo cusub samaystay culimada iyo mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa ka digaya hawshan iyada ah oo la leeyahay cawaaqib xun ay keeni doontaa maalmahan aad xaafadda ugu soo batay qabiilaystiga oo xaafadda ku soo batay waa Soomaali kala geyn waa qolo kala geyn iyo jufo aan iska ilaalinaa wixii khilaafa ama dhibaato dhaawac u geyn karta xasiloonaanta wanaaga iyo horumarka aan halkan ku haysanno taana waxay ku iman kartaa haddii aan iska ilaalino khatarta iminka soo baxaysa ka soo baxaysa meelo badan midda kalena waxaa anigu aan ku talinayaa oo aan noo fiican anagu inaan wanaaga iyo midnimada dalka Soomaaliyana aan ka shaqeyno oo aan anagu noqon dhaqaalaha iyo wanaaga aan halkan ku haysanno intii aad halkan ka qaadaan inaad Soomaaliya ku soo gubtaan waxa way marka daahira xun baa soo gudubtay ayaa timid ayaa ummadda soo dhax gashay daahirada waxa weeye Soomaaliya soo burburisay ummadda Soomaaliyeedna anficaynin meeshii ay degreedo ku badneed ku anficaysay halkan aan ku anficaynin wax la yiraahdo dabaaldeg qabiil iyo calamaan qabiil ay leeyihiin waxa weeye burburka hortiisa wixii aan ku soo aragnay kaga soo carnay kaga soo qaxnay Soomaaliya ayaa nala dawaa darbigan soo taabanay meel kale oo soconna ma lahan waan ku dagaalamayna joojinayaa iska joogsan maayo wuxuu ku joogsanayaa kow horta dukaamada lagu sameeyo iyo dadka sameeya maanta from today waa inuu noqdaa kontraband wahagaag haatanna sheeko xiise leh dalka Uganda ayaa waxa ka dhacay aroos loo dhigay nin dhalinyaro ah oo hal mar 7 dumar ah guursaday aad baa loo hadalhayaa sheekadan deegaanka Bukareka ayay ka dhacday baa la leeyahay oo ka tirsan gobolka Mukono maalintii Axadda ahayd ayuuna arooskan dhacay ninkan gabdhaha 7 ah halka mar guursaday waxa lagu magacaabaa Salongo Habib 7 gabdhood laba kamid ah waa walaalo arooskan ninkan 7 dumar ah ka guursaday
ayaa waxaa lagu qaaday laguna gelbiyey mootooyinka dhugdhugleyda ee boodhaboodhaha loo yaqaano iyo baaskiilada ama bushkuleytiga hal mar ayuuna arooskan isaga dhacay dadka ayaa waddooyinka tubnaa iyagoo ka marqaati noqonayay arooskan cajiibka ah iyo raganimadan ninka halka mar toddobada dumarka isu keenay haatanna ku soo dhawaada xubinteennii suugaanta barnaamijkeennii daqiiqadaha wararka caawa waa naga intaas waad ku mahadsantihiin daawashadiinna cabdifataax cabdullaah soo saaray maxamed elfis wuu farsameeyey aniguna cabdirasaaq catoosh baan ahay tan iyo kulankeenna kan xiga nabadgelyo faa'iidooyinka adeegga ebesa sendi money dirista lacagaha withdraw money qabixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka ebesa bay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka ebesa global xawilaadaha ebesa mastercard Visual Mastercard, Banking Service, adeegyada bangiga, ebesa goor kasta iyo goob kasta.